wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahin oo ka qayb galay shirka wada tashiga ee dowlad goboleedka Puntland oo maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu madaxweynaha Puntland ugu baaqay inuu dib u soo celiyo gobollo uu sheegay inay Puntland ka maqan yihiin sidoo kalena waxa uu sheegay inay gacan ku siin doonaan dowladda federaal ahaan. waxaan rabaa inaan halkan cod dheer kaga iraahdo gobollada maqan ee Puntland waxaan maqli jiray ama mararka qaarkood aan dhageysan jiray marka lagu jiro campaign-ka in nin walba oo markaas taagan oo sharaxan oo yiraahdo dhulka waa soo celinay maanta waxaan aaminsanahay inay fursad u tahay in dhulkaas maqan oo midnimada Soomaaliya iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed astaan ah waxa ugu weyn oo ka soo baxa inay noqoto dhulkaas sidii loo soo celin lahaa igama ahan colaad inaan hurinayo laakiin waxaan ka arkaa wadajirka Soomaaliya midnimada Soomaaliya iyo kuwa doonaya inay rabaan Soomaali inay kala qobaan kuwa doonaya inay Soomaali kala gooyaan ayay u noqonaysaa cashar ayay waxay u noqonaysaa inay ka samraan waxa ay ku haminayaan madaxweyne waxaan kugu tabayaa geesinimo waxaan kugu tabayaa hoggaan wanaagsan aqoon baan ku leeyahay saaxiibnimo ah waxaan ogahay oo ku kalsoonahay kartidaada adiga iyo golayaashaada iyo madaxweyne ku xigeenkaba garab baan idinku siinaynaa wadajirka iyo midnimada dadka Soomaaliyeed iyo kan Puntland. Axmed Maxamuud Dool, telefishinka Sahan.